بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ولا ليال صاحب يال soo dhawaada mar kale waxaan doonayaa maanta inaan idin la wadaago haddii la haydmo fikrad ku jirto mid ka mid ah buugaagta uu qoray qoraagan Mareykanka ee la yiraahdo Stephen Covey. Fikradan waxa ay leedahay qofka bini'aadamka ah waxaa jiro laba xayndaab oo ku wareegsan. Xayndaabka koowaad waxa weeyaan mid uu asaga saameyn ku leeyahay. Xayndaabka labaadna waa mid uusan asaga saameyn ku lahayn laakiin uu daneeyo. Labada xayndaab marka kan koowaad waa waxa adiga saameyn ku leedahay oo aad control karto oo aad xakameyn karto oo aad wanaajin karto ama xumeyn karto. Kan labaad waa waxaadan adiga saameyn ku lahayn adiga taxakumkaaga amaba controlkaaga ka baxsan laakiin haddana aad danayso oo inta badan ay dadka ka hadlaan awoodooda tamartoodana ay galiyaan inta badan. Haddaan u imaano marka tusaalayaal aan ka bixin xayndaabka aad adiga saameynta ku leedahay control karto xakameyn karto waxaan tusaale u soo qaadan karnaa inaad naftaada horumariso waa wax adiga kugu xiran qofka bini'aadamka ayay ku xiran tahay inuu naftiisa horumariyo inuu wax akhriyo inuu wax barto xirfad aqoon kororsado dadaalo waa wax asaga ku xiran inaad waxaad bilowday dhamayso kana gungaarto wax adiga kugu xiran sidaas oo kale inaad shaqadii lagu dira ka soo baxdo si wanaagsan aad u qabato wax adiga kugu xiran akhlaaq wanaagsan inaad kula dhaqanto iyo dabeecad wanaagsan waa wax adiga kugu xiran xiriirka alle iyo adiga ka dhaxeeya inaad wanaajiso cibaadaadkii laga rabaa aad la imaado waa wax adiga kugu xiran waxaas oo dhan adiga waxay galayaan xayndaabka ama wareega ama circle-ka ama daa'irada adiga aad saameynta ku leedahay xakameyn karto dhinaca kale waxaa jira xayndaab ama wareeg ama daa'iro ama circle aadan adiga saameyn ku lahayn laakiin inta badan dadka ay daneeyaan inay ka hadlaan ihtimaam badan ay siiyaan waxa ka mid ah dhaqanka dadka kale inay si wanaagsan kula dhaqmaan ama si xun kula dhaqmaan wax adiga saameyn kugu lama dabcan waxay saameynta imaanaysa adiga dadka si xun ula dhaqanto inay si xun kula dhaqmaan laakiin dadka kale dhaqankooda dadku waa kala nooc mid waxaad arkaysaa markasta iska xanaaqsan mid waxaad arkaysaa akhlaaq xun mid waxaad arkaysaa akhlaaq wanaagsan mid waxaad arkaysaa dabci wanaagsan mid waxaad arkaysaa jilcan mid waxaad arkaysaa kiir badan dadku kala nooc weeyaan marka adiga inaad ku mashquusho dhaqanka dadka kaleeto wax adiga aad saameyn ku leedahay ma aha laakiin waa wax dadka inta badan ay daneeyaan ay ka hadlaan hebel waa kan hebel waa keer waxa weeyaan kaasida uu yiri kaasida uu sameeyay kaasaas uu yeelaa wal dhaha tusaale kale waxa noqon kara colaadaha iyo dagaalada meesha aad joogto ka dhacayso kale waxaad saameyn ku leedahay ma aha oo adiga waxa weeyaan waa wax aad daneynayso oo dabcan meel amni qofku inuu ku noolaado uu jecel yahay laakiin haddana sidaas oo ay tahay tusaalahan kala geeyigeena Soomaaliyeed intuu dalka colaadda ka socday dad ba wax ka qabsaday dad ba horumar ka sameeyay dad ba dadaalay halka dhinaca kale dad badan aysan meel dhaafin sababtoo ah waxay ku mashquulsanaayeen oo ay curdaar ka dhigtaan inuu maxay dalka colaad ay ka jirto dhib uu ka jiro oo dagaal uu ka jiro marka dadna waxay xoog saareen xindaabka ayaga saameynta ku leeyahay dad waxay xoog saareen kan aysan saameynta ku lahayn ay daneeyaan xanuunka iyo cudurrada iyo qadarta rabbi ee kala duwan ee qofka sikadiisa ugu imaado oo waxyaabaha uusan saameynta ku lahayn bay ka mid tahay la rabo inuu aqbalo oo uu maaragtay marka uu ka fiicnaado noloshiisa si caadi ugu soo laabto faqriga iyo saboolnimada intaba waxaan anaga dooranay ma aha reerkaaga haddii aad ka dhalatay reer sabool ah waxaad adiga dooratay ma aha laakiin adiga waxaad awoodaa inaad inta dadaasho aad maxay aad qani noqoto marka waxay galayaan in maaragtay reer faqiir aad ka soo jeedo waxa adiga reerkaaga ay yihiin wax saameyn oo adiga aad ku leedahay Ilaahay ma ku dooray ceebaha dadka kale ay leeyihiin waxay ka mid tahay waxba adiga aan saameynta ku lahayn dadka aad ka dhalatay ee Soomaalida waxay ka mid tahay waxba adiga aan saameynta ku lahayn inta badan dadka waxaad maqlaysaa Soomaalida waa kan Soomaalida waa keer Soomaalida waa qof walba waxa weeyaan wuxuu fatwoonayaa nooca ay Soomaalida tahay sida wuxuu yihiin laakiin qof isku dayay ma jiro inuu dhaho aniga maxaa Soomaali ka hadlaysan aniga wanaajin kara ama maxaan aniga ku soo kordhin kara Soomaali waa yariin dadka noocaas saa u fikir marka dadka inta badan waxyaabaha aan sheegnay ee dambe ee xayndaabka ihtimaamka ee dhahaan ama maaragtay danaynta iyo maaragtay ayay ku mashquulaan waqtigooda iyo juhdigooda dhan wada galiyaan oo adiga aragtidaarada wada fadhiyaan maaragtay waxa lagu hayaa waxa weeyaan waxa lagu mashquulsan yahay waxaana qofka dan aanan u ahayn dulucda marka iyo gunaanadka waxay noqonaysaa adiga qofkii bini'aadan ah ee xoogga saaro xayndaabka danaynta ee uusan saameynta iyo xakameynta ku lahayn noloshiisa ma gudba ayuu noqonayaa horumar badan ma sameyn karayo waqtigiisa lumayo waxa weeyaan niyad jab badanna waa uu ku dhacaya waxyaabaha aan sheegnay ee dhaqanka dadka kale colaadaha saboolnimada meesha aad ku nooshahay qoyska aad ka soo jeedo
waxaas oo dad ku mashquulsho wax micno ay ku sameynayaan ma lahan horumar la'aan iyo nolol xun oo ku dhibto oo adiga niyad jab ku keento baad ka faa'iideysa halka dhinaca kale xayndaabka adiga aad saameynta ku leedahay ee ah inaad ishormariso inaad wax barato inaad software cusub barato inaad computer barato inaad xirfad cusub barato inaad dadaasho inaad shaqayso si free iyo si lacag labadaba si aad maaragtay xirfado badan u kasbato lacag yar aad ku bilowdo aad ku shaqayso hadhowdii aad kaga gudubto sidaas ay inaad maaragtay hore u sii socoto waxaas oo dhan wax adiga kugu xirmo saameyn aad ku leedahay qofkii tan dambe sameeyo oo xooga isugu geeyo waxa asaga uu saameynta ku leeyahay inuu control inuu waqti hore kaco isku dayo inuu maaragtay wixii uu qortay ama uu dhigtay ama uu rabay horumar inuu sameeyo inuu daba galo oo daba socdo hawlaha uu bilaabo inuu dhamaadkooda uu ka gungaaro qofkii noocaas isku day ayaa nolosha horumar badan ka sameynayo qofka ayaana gungaaray fikradda gunaanadkeeda sida ayay noqonaysaa marka ugu dambeyntii su'aal ayaan rabaa inaan kusoo gabagabeeyo adiga kee tahay ma waxaad tahay kan ku mashquulo waxa asaga saameynta uu ku leeyahay nafsidiisa horumar u horseedo mise waxaad ka mid tahay dadka inta badan ku mashquulsan waxa uu asaga saameynta ku lahayn iyo xayndaabka fadhi ku dirirada aan bixin karno miyaad ka mid tahay hoos commentiga noogu reeba wixii talo iyo sixitaan iyo tusaale nala wadaag walaalayaal aad baa u mahadsantihiin. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.